الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أساتذة soo dhawaada إن شاء الله تعالى waa maadadeenii data structure waxaan bilaabeynaa jabtarkii saddexaad. waxaan uga hadli doonaa wax loo yaqaano arrays waa jabtar runtii aad iyo aad muhiim u ah in programming marka la joogo fieldigan loo yaqaano. marka insha allahu tacaala arrays waxay ka mid tahay saan hore aan usoo sheegnay types of data structure ayaan hore usoo xusnay soo sheegnay inuu kamid ahaa linear data structure. marka array waxay kamid noqon doontaa linear of data structure. marka la qeexayo waxaa loo yaqaanaa arrays are linear at the same time are homogeneous ayaa la yidhahdaa. xogta ay kaydiso waa xog isku mid ah hab oo sequential fashion oo isku xigtan xogta way u qaydisaa. marka array si kooban haddii luqad ahaan loo sheego waxaa la yidhahdaa waa collection wax lasoo aruuriyo la isu keena waxaa loo yaqaanaa array. array si kooban in programming marka laga hadlayo waxaa loo yaqaanaa waa array ama waa term ama waa object loo isticmaalo in lagu kaydiyo qiimayaal oo isku mid ah. dhammaan wixii oo integer array lagu kaydinaa. all wixii character ah xagee lagu kaydinaa character array. wixii double array hadba type-ka ay isticmaashay ayaa lagu magac daraa. hadday tirooyin caadi ay yihiin integer array ayaa leeyahay. tirooyin point leh double or float array ayaa leeyahay. hadday xaraf ay yihiin character array saas loo isticmaalaa. marka waxaa la dhahay it is very popular and useful data structure. array marka laga hadlayo aad ayay caan u tahay muhiimna way u tahay data structure-ka. marka laga hadlayana qaybaha muhiimka ayay ku jirtaa. very popular at the same time useful according to data structure. kaloo muhiimka waxay tahay stores data element in contiguous locations. marka xogteeda arrayda xogta waxay u kaydisaa hab memory isku xiga booska koowaad booska labaad booska saddexaad waxa loo yaqaano scattered ma aha separated ma aha qiimayaasha hab isku xiga u kaydisaa. iyadoo booska koowaad aan buuxin booska labaad ma boodi karto booska saddexaad afraad iska wadaaf. more than one element is arranged. hal element wax ka badan ayaa lagu habeeyaa hab caynkee laakiin in sequence hab isku xiga. that's why lagu magacaabo marka composite data structure. array also called waxaa lagu magacaabi karaa inay tahay composite data structure inay tahay. sababta keenaysa waxay tahay hal element wax ka badan ayaa hab isku xiga loo kaydin karaa. si kooban daa u qeexno array waxaan leenahay waa linear hab sequential fashion oo isku xigtay xogta u kaydisaa. at the same time homogeneous homo means waa same laba astaamay kulansata. marka hore u socotiin data structure waxaan soo dhihi jirnay linear data typekeeda linear data structure homogeneous data structure non-linear data structure static data structure dynamic. marka hadda laba nooc oo kamid ah types of data structure ayay kulansatay. waxaa la yidhi array is a linear at the same time is a homogeneous ale. xog hab isku xigay u kaydin kartaa xog isku midna way kaydin kartaa according to data structure. homogeneous iyo heterogeneous active yihiin. hetero means different homo means same homogeneous marka waxaan leenahay means waa same types of element are stored in it. xogta lagu kaydinayo arrayda waa xog isku mid ah same element same types of element haddii 10 tiro oo nadiif ah aan rabo inaan kaydiyo integer array isticmaalaa. haddaan xarfo inaan kaydiyo aan rabo character array isticmaalaa. the array is most commonly used data storage. marka la kaydiyo la rabo kan ugu isticmaalka badan array sababtuna maxay tahay it is built in most programming language. arrayda dhammaan programming language dhan ba way yaqaanaan C isticmaal C++ isticmaal visual basic isticmaal VB isticmaal ASP isticmaal waxaad any programming language waa built in waxa la raadinayo mid taqaan leeyahay ma dhammaan way yaqaanaan. marka laba astaam ay leedahay. marka most commonly used data storage structure marka la kaydiyo tan ugu muhiimsan ayada waa built in most programming language laba astaam. marka waxaa leenahay this arrangement makes possible a fast way of searching of data item. waxaa leeyahay marka habkan hadda aan ka hadalno labadan shay ah ayaa ka dhigan leenahay in si fudud wax itemka loo baahdo loo raadin karo. array-ka isticmaalaysid any application any object any information oo u baahan tahay si fudud ayaa ku heli kartaa. search-ka ku fiican tahay macnaheedu. si kooban daa u dhahno most widely used measure algorithm efficient. algorithm ahaan marka laga hadlayana tan ugu isticmaalka badan uguna beeqaamsan uguna fiican ayada inta badan waxaa laga fikiraa marka program la qorayo space-ka isticmaalaysid iyo waqtiga isticmaalaysid ayada waqtina ka dhumayso space badan uma baahna. algorithm efficiency marka algorithm ahaan okay aad u fiican tahay. waxaan ka soo hadalnay inay tahay storage ahaan in la xalqeediyo rabo ayada in la isticmaalo. built in inay ku tahay most programming language oo wax la raadinayo isan aqoon aysan ahayn waa built in waa default. marka waxyaabahaas ayaa ka dhigan dhahnay in si fudud loo raadin karo itemka loo baahdo. array marka according to searching way ku fiican tahay macnaheeda sidoo kale waxay ku fiican tahay algorithm ahaan aad ay u fiican tahay. sidoo waxa soo qaateen analyzing algorithm
marka la analyze gareeyo algorithm-ka waa in la qiyaasaa resource-ga uu u baahan yahay haddaa xasuusataan marka analyzing-ka waxaa soo hosgelaya time-ka iyo space-ka waa muhiim marka aad ugu fiican tahay iyada waa array si kooban waxaan leenahay inay tahay waa collection of homogeneous data stored under a unique name waxaa leedahay waxyaaba la isu keenay waaye oo isku mid ah magac unique waa loo bixiyey yaa oo elements badan oo la isu keeno hal magac loo baxshay waa qiimayaasha array ay ka kooban tahay marka waxaa loo yaqaanaa elements of an array allah qiimayaasha arrays ay ka kooban tahay waxaa loo yaqaanaa elements of an array ayaa la yidhahdaa elementyadaas markii la rabo in lala soo baxo mid ka mid ah can be accessed elementyadaas waxbaa lagu shubi karaa waxbaa laga soo baxsan karaa iyadoo la isticmaalayo wax loo yaqaano subscript number la isticmaalaa ama index number ayaa la isticmaalaa meesha marka terms muhiim waa qiimayaasha arrayda ku jira waxaa loo yaqaanaa elements of the array marka rabo inaan qiimayaal geliyo ama kuwa ku jira aan kasoo bixiyane waxaa isticmaalaysaa subscript or index la isticmaalaya arrays may be of any variable type array waxay noqon kartaa data typeska jiro dhan way qaadan kartaa integer ay ahaan kartaa float ay ahaan kartaa character wax xigta ahaan kartaa array magac kale haddaan siino waxaan leenahay waa subscript variable waa variable-ki oo x camal waaye laakiin hoose number laga siiyey yaa subscript variable waa variable oo number hoos ka wato waa sababtoo marka hadda inta aan isticmaalin array waxaa leedahay integer x of 2 ama 3 ama 5 number variable-ka caadi waaye laakiin number hoos ka siis marka array is also called magaca u bixi karnaa subscript variable waa la yidhaha marka termiskan aad ay muhiim u yihiin asaatida lagu dadaalo okay types of an array meeqa loo qaybiyaa si guud waxaa loo qaybiyaa 3 one dimensional array ama single dimensional array dheh two dimensional array ama double dimensional array multi dimensional array saddexdaa loo qaybiyaa si guud single or one dimensional array si kooban haddaa u sheegno waxa waaye xogtii in loo kaydiyo hab linear form hab toos oo xiriira yaa single hal line waa marka hal sadar waa marka single dimensional array boos u qabanaysid waxaa isticmaalaysaa inta kasta yaa shuruudahan isticmaalaya waxaa qoray data type-ka kabacdi waxaa qoray array name-ka kabacdi array size-ka haddii si kooban u sheegno waa kana intaa waa integer waa data type-ka waa array name-ka of tree-gina waxaa waaye size-kii waa kuwaana waa values-ka qiimayaasha waa memory-ga tag saddex boos iga qabo memory-ga tag boos iga qabo ee la yiraahdo saddex location ha yeesho qiimayaashana kuwanaha marka intiisa array index la yiraahdo oo subscript yaa markan waxa waaye dimension-ki waa size-ki waa integer a of 3 size-kaada waa kana a of 3 gana markaan index yeelana kan index-ku uu yaala xal leeyahay waa a of 0 a of 1 a of 2 hadaan waxaan isticmaali karnaa string waxaa leenahay character ch of 20 waxaan u bixinaa compiler yaa 20 boos aan qabsanay compiler aan isticmaalo wax badan oo qabsan kartaa wax yar oo isticmaali kartaa laakiin xawal goleen wax yar inaan qabsatid wax badan ay isticmaasho lama ogola kuwaan waa tusaalooyin shuruudaha in laga helo waa data type array name and size data type array name size data type array name size in la helo waa qasab okay marka la rabo memory-ga in la xisaabiyo way fududahay memory-ga array meeqay ka qaadanay waxaa la isku dhufanaa data type-ka iyo size-ka isticmaasho meesha waxaa leeyahay data type integer soo maaha integer how many bytes u lahay 2 hay tirada ma ku jirto meeqa waa 3 ku dhufo 3 lix waa leedahay 6 bytes memory ka qaadanay waa kana qaacidana lagu helaa total size waxaa lagu helaa length of array inta ay eg tahay size-keeda oo lagu dhuftay data type size-kiisa example hadda aan soo marnay oo ahay muxuu ahay integer waa type-kiis meeqo size-ku meeqo ahay 3 waa waxaa isku dhufanaya markaan 3 oo size-ka array ah iyo integer oo 2 ah size-kiisa caadiga ah 6 waa oo ina taqaanaa marka data types-ka size-kooda hadda character camar 1 waa float 4 waa double 8 waa long 8 waa ina taqaanaa waa kuwaas hore soo marteen maadaama soo qaateen c memory location iska saan noqonaa marka yaa logically marka la sheegay memory-ga saan noqonaa loopka a of I 0 1 2 3 ilaa n meesha ugu dambeysay locationadii subscript-gii waa elementino kuwana 5 7 2 2 alif waxaad dhigi kartaa qaybtan waxa waaye no one knows memory address-ka isbedelaya adii ma taqaanid 1000 2004 n waa dynamic memory location laga hadlayo waa dynamic adii waxaa xukumi karto waxa kamid ah kuwan values-kan iyo index-yadooda aad maamuli kara kan waxa waaye mapping marka memory-ga one dimensional array marka memory mapping kala sameynayo logically say memory u taalo habkan index-yadii oo locationadii ah qiimayaashii iyo qiimayaashaas meesha ay ka yaaleen memory location-ka ay lahaayeen
meesha waxaan fiirinaa featureska astaamaha ay leedahay array waxaa la yidhi should be positive number only. Numberka size-ka la qaadanayo array numberkan aan qaadanayn mar kastaba waa inuu positive ahaadaa. Minus ma qori karo, minus 3 lama dhigi karo. waa kow. Labo, string array waa in lagu dhamaystiraa waxa loo yaqaano null character oo saan loo qoro. Null character waxa lagu dhameeyaa wax kale maahane haddii string la qoro null characterna aan lagu dhamaystirin markii hadhow lasoo bandhig la yidhaahdo wuxuu soo raacsiyaa waxyaaba jeebkiisa ahow calaamad su'aal iyo comma iyo quotation waxbuu soo raacsiyaa marka iga reeb waa ya marka null character waa in lagu dhameeyaa string arrayga wax caadi oo la yaqaano waa haddii kale borobay kartaa hadda magacaada soo geli soo bandhig waxbuu ku soo raacsiyaa marka laakiin isticmaasho that symbol way ka harayaan laba nooc la qori karaa in asaan u qorno iyo in ever u qorno labada waa la sameeyaa null character array elements are encountered from array element waxay kasoo bilaabanayaan 0 ilaa intay soconayaan n minus 1 element ugu dambeeya laga jira hal ayuu noqonayaa si kooban baraadka ayaan sii karaa hadda meeshaan fiiri hadda haddaa rabto inaad ogaato 5 meesha ay taalo waa 2 3 5 mugtaa 5 xagee taallaa n minus 1 waa saaskan meequ ahay 3 intaadi waa 3 halka jeer marka 2 5 labay taallaa waa 0 1 2 markaas waxaa leedahay n minus 1 saaska ugu dambeeya waxaa leedahay guud ahaan saas meequ ahay 3 halka jeer 2 booskan 2 yaalaa ya waa 0 1 2 sax waa n minus 1 0 laga bilaabaa ilaa n minus 1 waxaa la yidhi arrayda waxay ku fiican tahay ayada in qiimayaal badan marka lasoo geliyahay oo lasoo akhriyahay aad u fiican tahay sax waa array ayada maadaama education weyn ay tahay qiimayaal in lasoo akhriyo ku fiican tahay faa'iidarada ay leedahay arrayda waa kanaha kow number 1 waxaa waaye hab fudud oo qiimo lagu sii karo large number of array elements ma jiro haddaan rabo si fudud inaan variable aan u baahdan qiimo siiyo oo si fudud aan u siiyo qasab waxaa waaye programka dhan wax iska bedel aan wax ka bedel ku sameeyo si fudud ma ku sameyn kartid okay element mucayan u baahan rabaa inaan qiimo siiyo sidoo kale way adag tahay qiimo lama sii karo waxaas ay leedahay hab fudud oo large number of array elements aan qiimo ku sii karo ma jiro qiimayaal badan oo array elements ah inaan qiimo siiyaan raba ma sii karo dhexda aan maraya waxa u baahday element mucayan aan qiimo siiyo ma siin karo wax walba aad qabanaysid must be known first marka hore waa la yaqaanaa drawbacks-ka linear arrays-ka ay leedahay waa la soo koobay the number of elements which to be stored in array qiimayaasha aad rabto inaad kaydiso must be known first programka tadan bilaabin ka hor waxaa qasab ah qiimayaasha aad kaydinaysid waa in la yaqaanaa shardi waa meela ugu daran kamid ah intaan wax kaydin ka hor numberka aad kaydinaya waa in la yaqaanaa okay haddii ka waran boos badan aan qabsado 20 boos aan qabsaday 10 aan ka isticmaalay sidaas oo dhan memory ka buuxinaya mana tiri kartid when array is declared hadda boos qabato memory is allocated to it boos hadaa qabato arrayda boos loo qabanaa 20 aan u baahanahay boos lagu qabtay haddii qaar kamid ah marka aysan buuxin not filled completely haddaan qiimo ku jirin booskaas aad qabsato qaar kamid ah markaad space occupies wuxuu ka buuxinaa memory waa marka 20 boos aad qabsatay 10 aad ka isticmaashay 10 soo haray memory ka buuxi karaa le ma saari kartid sababtooda qabsado labada qayb ay leedahay marka inaan marka hore size-ka aad taqaano arrayda isticmaalaysid marka labaadna waxa waaye boosaskaas maaragtay aad qabsatay laakiin aadan u baahan si fudud iskama tiri kartid waa kana marka program guud oo ku tusaya sida qiimayaasha hab isku xiga loo kaydiyay meeshaan fiiri integer num waa variable-ki 5 na waa size-ki kan waxaa loo yaqaanaa data type-ki kan waxaa loo yaqaanaa array name calaamadan waxaa loo yaqaanaa la furo la soo xiri waxaa loo yaqaanaa array sign aa la yidhaha waa calaamadda array ku sheegayba kanna waa size-ki 5 qiima isticmaalno 5 index haystaa waa 0 1 2 3 4 qiimeeshan kuwanaa 5 qiimo kuwanaa mid kale soo bandhig waa printf num of 0 ka doono 1 soo baxaya kana 1 num of 1 ka doono 2 kana waa 3 kana waa 2 kana waa 5 way fududahay marka inta xasamaysay declaration and initialization at once salida boodka waa qabsatay qiimiina waa siis waa data type waa array name waa array size waa values array element story in hab caynka loo keydiya 6 memory location hab isku xiga saad maxay tahay waa 0 1 2 3 4 waay hab isku xiga loo keydiya xogtii meesha waxaan bilaabeynaa 2 dimensional array hadda single waa soo aragnay waa hab linear hab isku xiga laakiin hab matrix format waa matrix micnaheedu waxa waaye row and column ayaa loo baahnaa doonaa kii hore wuxuu iska ahay hal saf one row ah the array that's used to represent and store data in a tabular form habka loo kaydina tan waxay noqon doontaa hab table format ah waxaa loo yaqaanaa 2 dimensional array allah
such type of array is specially used to represent qaabka noocan oo kale ah markay tahay two dimensional arrayda waxaa loo muujiyaa hab matrix form matrixka caadiga ah dugsiga kusoo qaateen ama matrix u taqaaniin caadiya loo qoraa syntax of two dimensional array see loo qoraa marka kow waxaan qorayaa data typeka kabacdi waxaan qorayaa array nameka kabacdi row waan soo hormariyaa kabacdi columnka waa kan ahaa haddii boos la qabto la yidhaahdo intaanay naqayn kow waxaa samaynaysaa integer a of tree kan waxaa data typeki array nameki rowgi iyo columnkii ya hadda meeqa qiimo maan keedi kartaa saddex ku dhufto meeqa waa sagaal value sagaal qiimaan keedihaa in the above example haddaan rabno hadda size-ka inaan xisaabino memoriga meequu ka qaadanaha integer laba ay ahaan jirtay saddex ku dhufo sagaal laba ku dhufo 18 waa kan ahaa memoriga intaas ku qaadanaha 18 size-ka oo la isku dhuftay kabacdi lagu sii dhufto data type-ka waxaa la yidhaha mararka qaar two dimensional array also called maxaa loo yaqaanaa ayada multi dimensional la yidhaha sababtoo ah 3 by 3 hadda multi waaye waa saddex row saddex column 2 by 2 hadduu ahaan lahayd 2 dimensional ahaan lahayd marka sometimes 2 dimensional array sometimes called waxaa la dhihi karaa multi dimensional array la yidhaha example-kuna waa kan ahaa meesha waxaan qabsanay a of 2 dimensional array waa tan hadda 2 times 2 4 numbers waa afar number aa la rabaa hadda indexki a of 00 qiimihii koowaad a of 01 qiimihii labaad a of 0.10 qiimihii kale a of 114 afarta qiimo kuwana ku xiriirsan yihiin ya haddii aan si guud u sharaxno waa data type array name rowgi iyo columnkii ya meeqa qiimo waa laba ku dhufo afar qiimaa la rabaa markay 00 yihiin labaduba markay 01 yihiin markay 10 yihiin markay 11 yihiin 00 maxaa waa markuu rowgu 0 yahay columnku 0 yahay markuu rowgu 0 yahay columnku 1 yahay marka columnku oo rowgu 1 yahay columnku uu 0 yahay rowgu oo 1 yahay columnku oo 1 yahay afartan qiimo kabacdi soo bandhig waa percentage d ka doonaa a of 00 percentage d a of 01 percentage d a of 0 02 ha waxaa waaye kow labo saddex afar shan qiimo ku siiyey markay 00 yihiin markuu 01 yihiin markuu 10 yahay meeshan 10 dheh markuu yahay 11 ma loo baahno waxaan kale maarag ma loo baahno intaas waaye ismiinas waxaa haystaa 4 values haystaa ya برسد دي يعني أسكال 00 مكيهين برسد دي يعني أسكال 01 مكيهين كنا محاواي 10 مكيهين كنا مركو 11 يهين هذا وبالله التوفيق يا two dimensional array example نو هايستا أكنا أقصد لو تبي اللوبة كاستاتيك أو هاي اللوبة matrix variable كي واي 2 by 2 لو اللوبة اللي استعمالها مرك كانوا حلو يقانوا الروبة كانوا حولوا column كي يا sida la socotaan kan waxaa loo yaqaanaa upper loop kan waxaa loo yaqaanaa inner loop upper loopkii u taliyaa inner loopka loo taliyaa muxuu dhahayaa markaasoo aniga aan 0 ahay ama 1 ahay shaqadaa dhammaystiro kana soo gelintii marka qiimeyaasha lasoo xirayaa kan waxaa waaye qiimeyaashii ayaa lasoo bandhigayaa laba loop lagu soo xirayaa waxaa qasaba laba loop lagu daabaco sababta maxay tahay waa two dimensional array 2 times 2 two loops kusoo geli two loops kusoo bandhig aaday muhiim tahay waa dynamic iyo waxa waaye static kuwan asaatida kusoo baashaala maadaama xaafadda iska joogtiin maaragtay shaha loo cabo sali dhigataan maaragtay group ku shaqay kartaan as individual ku shaqay kartaan si bay tartiib wax xalisan la rabo 4 by 4 3 by 3 very simple waa naarta kana soo ku bedeli kartaa inta lee ku bedelay ya meeshaan 0 ila 2 0 ila 3 0 ila 3 ala bisoo dhamaan 0 ila 3 0 ila 3 ya qofkii caajis loo hoo inuu waqti badan bixiyo aan ogolayn qofkii ragana wuxuu sameyn karaa tartiibkiisa ya marka waa in huwa rag programmer ay tihiin oo diyaarsan inta idinka arka igu filan hala dadaalo salli qaata meel la fadhiisto shaah cadeys shubo bay group ku xalay daartiin baa inta alla ku xariya laakiin cabnashan waa la idinka rabaa insha Allah taala kuwana lamida inta 3 by 3 waa kan waa soo gelihiisa kaliya waxa soo xulay kan dhexda ah ya inta marka soo xirayso kan dhexda aan soo xulo inta kale iska dhaaf selection aleena waa programyo waaye barnaamijka wuxuu sameynaa introina soo geliye ya 5 arday 6 arday xogta soo geliye ka bacdi waxaa sameynaysaa summation marks dhibciya isku darey 5 arday dhibciyo soo xiray samku soo saar tan waxa waaye elementiya soo geliye kan ugu weyn soo saar kana waxa waaye average ka sameey tirooyinka soo gelisay
totalka maadaama haysato average oo saar. Kuwana waa su'aalo toos ah oo direct questions waaye oo ku baashari kartiin kuwan. Kuwan su'aalo toos ah waaye programmers ku jiraan. Kuwan wali muhiim waa programmers ka buuxa. Programmers kan si fiican u xalisan. Group ku xalay kuwan. Xogaa waa adag yihiin laakiin as group yaa wixii qof dhiba dad ma dhibaan la yiri maadaama aad team tihiin iskaashada hana la soo xaliyo. Asaatida waxaan ka codsanayaa maadada programming waaye tallaabo ka soo qaado you have to write a code waa inaad program qortaa si fiican u fahantaa. Ila fahmeysa aniga soo celiya ana xalinaha insha Allah. Waa kana qaybtan waa multiple choice waaye circle gooba geli. Array element are stored in iska cadda haba successive hab isku xiga loo kaydiyaa. Accessing all elements of the array maxaa loo yaqaanaa inta aniga ma aqaan. Array character always terminate with maxaa uu sir jira ma aqaano. Null character waaye afka iga dafa afur hal hada heer madax buuri. Array is maxay tahay linear waaye haye homogeneous means same waaye oo ka shaqaysiin waxdan. Allah idin fududeeyo si fiican oo badan su'aalaha laakiin aad u fududiin. Sidaas aad ma santihiin insha Allah ta'ala khayr aan idin rajeyna. Allah idin fududeeyo waxaan idin rajeeyaa caafimaad iyo dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta joogaan inuu Ilaahay ka badbaadiyo dhibaatadan guud ee caalamka jirta khaasatan ummadeena Soomaaliyeed Ilaahay ka badbaadiyo adinkana maaragtay Ilaahay idinka badbaadiyo iyo si guud annagaba marka khayr aan idin rajeeyaa ila liqaa aakhar. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.